aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri ka dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosalka aan nagu arkaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waagii barye iyo gobolkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysato unbaad isoo dhiganayso iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tathbiit fainahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weydiiya su-aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya haddaa su-aashii qabriga la weydiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su-aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su'aalood weeyaan man rabbuka man nebiyuka maa diinuka mar allii markaa qofka innaku aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deedna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weydiinayaan hadduu boqor yahay waa la weydiin hadduu caalim yahay waa la weydiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yidhi yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira wayowma yaquumu alashhaad ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doona oo ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona walaalayaal ilaahayna haynagu sugo allah haynagu sugo allahna inoo dhib yareeyo saddexdaas su'aalood baan qof kasta la weydiin doonaa marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqaayay ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqaa kuu muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arka adduunka inta la joogo jidhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaada iyo manfacadda thawaabka ma arkaysid waa qayb aakhira taa lagugu tusin doonaa shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayabaat wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa shayga qaybka maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada imaadood aragto ayuu noqon doonaa maanta adduunyada ay noo muuqato aakhira ay nooma muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalu dhinto laqad kunta fii ghaflatin min hada fakashafnaa canka qidaa'aka fabasaruka alyawma xadiid waxaa la odhan doonaa daahiyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan laakiin maanta daahiyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa oo adduunyadii baa noqon doontaa qayb bay noqoni doontaa ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaah iyo cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana thawaabkii iyo ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay aakhiradiina wax ku muuqatay noqoni doontaa markaas marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karayo laakiin aayaadkii ilaahay baa la arkayaa wa min aayaatihi alleylu waannahaar habeenku aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheegu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo guga iyo jilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo noloshiyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo lab iyo dhidigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka uu shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo
ونظام غيبة ولا ينقريه ما أركي كرينه سيدا الروح ذا جلك كجرت إشاد وعيسانو أركي كرينين قعنت دقدقاق أركيسا دكت مقل كيقاد أركيسا لقت سعود كيقاد أركيسا مدح دقاقي ساد أركيسا لكن روح ذا بني آدم ما أركي كران لكن قال يا إسلام هل مركو قف كدنتو انتو بقفك كدنتو وويان هذا هذا محل أوي واقع قفكي قاعن كما قوين لغنا كما قوين دقلا كما قوسن ودن يحي جركي سيودن ودن يحي محل أوي هدي لي رادنا كل وضوح إليه شيء قيمها الهبة ماشي كبحي شيء قيمها لو محي والروح دي والروح ذا ماذا ركتي مي سيادو قرن إيسا قلبك أيا قرن أيا القلب يدرك الحقائق بين هذا العلماء قلبك أيا حقيقة صوتها بنا أيا شيء قيمها لها والروح ذا ويان روح ذا غيب ولا قارية ما أركي كريسد لكن إن جرت واحد كو قرن إيسا حركات الأعضاء عالم كان هذا الكيسود دن وح ويان وكالجسد ويان نظام كان عالم كودن وح كوهوس زرع نظام كإلهي النظام الغيب ليدادو marka muuminki iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqo la lahaa su'aasha u horeysa marka leeyahay mar rabbuka wuxuu leeyahay aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheradaydu ima rabbaynayn allah baa i rabbaynayay dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayay beertu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayay dawladdu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayay xooluhu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayay anu kuma nooleen waxaan adduunyada dulya loo dhane بل أمرك إلهي بنكون نولا لكن سؤال شادتك ما أنت هذه ميكروفون لقاتولنا ورمحات كن نوشهي نول بحالك أي أسبابته أي كسوق قشر دخل جيسو حالك وكسوق قلبه مركبه كون شاقي مدمحوك ورن والله مهرد يروح حالك كنت الله نكون نولا مدمحوك ورن عيال كيف بدي أوبا حيو كواسا كون نولا هذا ينبحين ما بنولا نن mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oo ku noolahay reer Djibouti waxay yidhaahdaan letreedkii baan ku noolahay letreedkii macaashkii may waa inaad tidhaahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annagu alladhi yut'imuni wa yasqini wa idha maridtu fa huwa yashfini والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وأين قفك قرطاع دودا هذا استعمال ليس شفاء الله ما سعته شفاء حق إلهي بكتم هذا دكان كاجي مهرد هذا يسوق كاجن وأسباب ويان لكن رزق حق إلهي بكإيمان يا وأين أتقرت الرب هو الله ويان معبود هو إلهي ويان كعبادة متيستوى إلهي ويان كبرية متيستوى إلهي ويان كالرجاء متيستوى إلهي ويان كعبسده متيستوى إلهي ويان كليجي رجع كليجي كعبسو كليجي بريو بايداد كليجي وشهو ربي جاي والله دين تيدنا الإسلام رقم كيجو إسلام وحكي لعنكم الرقمو وحكي لما من سني دين بانو نولهي دين بان برنا يا دين بان كشقينا يا قفك دين بان كجعلانا يا دين لعنا وكنا عيا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان برسول كويري نكا هدوح بحن إلهي درتي أبحن هدوح منعن إلهي درتي أمنعن هدو عد جعلان إلهي درتي أجعلان هدو عد نعي إلهي درتي أنعي كاس إيمانك وعد ما يسترتيب النبي قول عليه الصلاة والسلام وأين نقطة قف لله أنه لو تاريخ الصحابة يقول على سيرة علي بن أبي طالب ننبا هل من مبارز وحل معركة مسلمين تلو حقا أي جوغان قالدون حقا أي جوغان أيو يري نينكي ugu itaalweyna gaalada ayaa soo dhaco yiri hal min mubarizin ayaa macrakada igu soo dhacaya Ali baa u dhacay radiyallahu anhu Ali ibn Abi Talib ninkii intuu qabtay buu lagday markuu seeftay qaatuu yiri gali markuu isidina Ali ibn Abi Talib oo ninka kor fadhiyay buu qandhuuf wajiga lagaga tufay markaas waa Ali qandhuufa lagu tufay wajiga lagaga tufay gaalkiina dhulku jiifaa علينا سيفتي بو هايستا قندوف بالغو تفع علي وصريا وككعي علي صحابتي waxay ku yiraahdeen ya Ali maxaad uga kacday baa lagu yiri gaalnimada ninkan diinna waad ula dagaalamaysay adigana qandhuuf kugu tufee war marka hore Ilaahay dartii baan u dagaalamayay hada cara ay soo gashay buu naftayda darteed inaan u dilan ka baqay buu yiri lillaahiyad
waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban ciddaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan ciddaan nici ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheeg ilaahay dartii baan u sheegi khayrkaan dhegaysan ilaahay dartii baan u dhegaysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakamaynayso